السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya. Haddaba barnaamijka saaka waxaynu ku soo qaadanaynaa maxaa ka soo kordhay xaaladda gobolka Bariga Dhexe. Mareykanka oo xalay dib u bilaabay weeraradii uu ku qaadayay Iiraan oo sida caadada ay iyaduna jawaab ka bixisay garaacdayna qaar ka mid ah saldhigyada Mareykanka ee gobolka. qasaaraha dagaalkii xalay xaaladdu hadda sida ay tahay waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo sheegtay in loo baahan yahay gantaalaha difaaca cirka in degdeg ay u soo saarto shirkadaha soo saara gantaalahaas iyadoo heshiisyo cusub siisay shirkadahaas. xaalka ayaa cirka sii galaya. haddaba qodobadaas waan idiin hayaa. waxaa soo kale aanu idiin soo gudbin doonaa ammaanka mas-uuliyiinta ugu sarreysa Israa'iil oo si weyn loo adkeeyey saacadihii lasoo dhaafay iyadoo Israa'iil ay aaminsan tahay wakhtigii aargoosiga aayatullaahi Khamenei loo samaynayay in uu soo dhowaaday oo Iiraan ay howlaheedii isku dubaridatay. haddaba warbixinadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maantoo khamiisa kusoo gudbinaynaa. inta aan ku jirnana wixii warareen soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. jawigu waa sidee? haddaba maraykankii xalay ayuu dib u bilaabay dagaalkii iyo weeraradii uu ku qaadayay Iiraan. haddaba ma Netanyahu ayaa ku soo celiyey inuu dib u bilaabo weerarada mise isaga ayaa goostay Trump? waa calaamad su-aal. inkastoo aqalka cad ee Maraykanku ay leeyihiin waxaa loo aargudayaa ciidamadii weerarka lagu qaaday Maraykanka saldhigyada Maraykanka gaar ahaan Urdun aargudistoodiiaa bilaabad waxayna socon doontaa 2 toddobaad isbuucay oo habeen walba Iiraan la weerari doono. marka xalay maxaa bilowday? weeraradii ayuu Maraykanku dib u bilaabay. xalay ilaa saakay way socdeen 10 goobood sida ay leeyihiin oo gudaha Iiraan ka tirsan ayaanu weerarnay leeyihiin. haddaba warbixinta saakay ay soo saareen ciidamada Maraykanka waxay leeyihiin ciidanka Maraykanku waxay sheegeen inay soo kamileen oo ay soo dhammaystireen si guulana uu ugu dhammaaday mawjad aad u culus sida ay yidhaahdeen oo garaacisa oo ay ku qaadeen Iiraan. taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa faahfaahin uu soo saaray sheegay inay soo dhammaystireen weeraradii ay ku qaadayeen Iiraan iyagoo markaasi sheegay in ay markaa weerar ku qaadeen gantaalaha Iiraan oo markaa ay weerarayeen. haddaba dhanka kale waxay sheegeen inay bartilmaamaysadeen 10 goobood iyagoo markaasi beegsanayay goobaha ay leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. arrimahan waxaa looga jawaabaya lagu leeyahay weerarada gantaalaha Iiraan ay ku soo qaaday ciidamada Maraykanka. haddaba weeraradan waxay soo kale sheegeen Maraykanku inay ku garaaceen taliska militariga iyo goobaha sawaariikhda iyo diyaaradaha droniska Iiraan. waxay sheegeen hadafku inuu yahay in markaa la yareeyo oo meesha laga saaro khatar kasta oo Iiraan iyo awlaadeeda ka iman karta oo ka dhan ah ciidamada Maraykanka ee jooga gobolka. waxaa soo kale warbixinta lagu caddeeyey in 50,000 oo militariga Maraykanka ah ay hadda ku sugan yihiin qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bariga Dhexe waxaana ay ku jiraan xaaladii ugu sarreysay ee istiyaaris iyo heegan ah ayay ku jiraan ayaa la leeyahay. marka waxaynu taxliil yar ku samaynaynaa oo aanu wax yar faahfaahinaynaa warkan Maraykanka ay soo saareen muxuu kaga duwan yahay wararkii hore ee ay markii ay weerarku socday wax walba soo saari jireen. waxuu kaga duwan yahay mal waxaan weerarnay meelaha droniska iyo madaafiicda yaalaan. waxaan weerarnay meelaha laga hogaamiyo militarigu ka hogaamiyo ciidankiisa Iiraan. waxaynu arrintaa u samaynaynaa
inaynu yarayno awoodda khatarta ka iman karta iiraan ciidamadeena iyo meelaha waxa maraya Hormuz iyo waxaas marka waa taqriir caadi oo taariikhda laga bedelaa bas wax yar lagu daraa marka taa macneedu marka muxuu yahay weli Mareykanka weeraradii uu lahaa waxbaan dhulka dhigayaa buundooyinaan dhulka dhigayaa kanaan dhigayaa uu mar walba ku hanjabo Trump ma dhicin xalay kuwii normalka iska caadiga ahaa weeraradii ahaa ayaa dhacay sida hadda qoraalka ciidamada Mareykanka ay ku soo saareen ay kaga hadleen way Iiraan iyaduna maxay kaga jawaabtay maadaama weeraro sida u culus oo qatar oo waxyaabo looga baabi'ay aanay ahayn iyaduna hal weerara hadda ilaa hadda la soo sheegay haday kuwa kala soo socdaan ma garanayo waxay ku qaadeen la leeyahay saldhigii Mareykanka ee Urdunta way ku laabtaan markasta 4 maalin isku xigtay nagta ku hayaan shalay ugu dambeysay way garaacayeen maanta way garaacayeen Urdun waa la garaacay iyadana inkastoo Urdun ay tiri sawaariiqdii waa iska celiyay oo hawada ku qarxinay laakiin halka waa la weeraray haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay qoraysaa goor dhaweyd hujuum ama weerarkii afaraad in lagu qaaday Urdun waxay sheegtay 5 gantaal oo Iiraan laga soo riday inay markaa iyaguna soo rideen oo ay iska caabiyeen ciidamada Urdun war ay soo saareen goordhow waxay sheegeen subaxnimada saakay oo khamiis ahayd in ciidanku ay dhulka soo dhigeen 5 kamida sawaariiq ka timid dhanka Iiraan waxaana ay sheegeen in ay tahay maalinkii afaraad weerarada lagu soo qaadayo mamlakada ama boqortooyada Urdun oo isku xigay oo ay soo qaadayaan Iiraaniyiinta haddaba waxay sheegeen ciidanka Urdun difaacaadkooda dhanka hawada inay ku guuleysteen saakay oo khamiis ah inay 5 gantaal oo Iiraan kuwii ay soo riday ah ay ka hortagaan oo ay burburiyaan oo ay iska caabiyaan way marka meel kale waxba ilaa hadda laga soo sheegin Kuwait iyo Bahrain iyo dhulkaas wali waa lama garaacin Iiraan waxa kaliya ay ku jawaabtay leeyahay dhanka Urdun inay weerartay laakiin wari taqriirka ama warbixinta ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ee weeraradan ay jawaabta ku bixiyeen ma soo bixin macnaha wax wara oo hadda ilaa hadda ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay soo saareen barnaamijka waqtigan aan samaynayo ma jirto taa macnaheedu waxa ka dhigantaa leeyahay Urdun weerarkeedii waxaan waaba iska caadi kan wax weyn ma laakiin waxay soo wadaan sida dadka qaar ay aaminsan yihiin weerar kale oo jawaab waa kuwan oo dhici doona saacadaha soo socday leeyihiin marka waa arki doonaa kulay xalay intaasaa la isdhaafsaday ilaa saakay marka bariga dhexe waa saas dhanka kale waxaa mar kale cirka galay shidaalkii adduunka markii meeshaas wax ka dhacaan buu sii socdaa marka hal la yaabin haddii wax walba kugu qaaliyoobaan korontada hadday qaaliyowdo baabuurta iyo bajaajkii raacaysa hadduu qaaliyoobo taxigii hadduu qaaliyoobo wuxuu dhan hadday qaaliyoobo hal la yaabin xaalka adduunka saasa maanta waxaa leeyahay shidaalku 6% kor u kacay marka xaajo halkaasay maray ilaahu xaalka qaboojiya marayna marka xaaladdu waa sii kululaanaysaa marba marka ka dambaysa qodobka kale u gudbaynaa Mareykankii wuxuu hadda dalbaday in la soo badiyo la soo saaro gantaalaha difaaca cirka ee lagu difaaco gantaalaha iyo diyaaradaha ay leedo Patriot kuwii hore de waa dhamaadeen waa tii maalin hore dhowr maalmood ka hor la lahaa Mareykanka wuxuu dagaalka u hakinayay gantaalahaas ka dhamaaday oo ay markaa inkirayeen laakiin hadda banaanka la soo dhigay shirkadii samaynaysay Patriotiga iyo gantaalaha difaaca ayaa wasaaradii gaashaandhigga Mareykanka waxa leedahay degdeg u soo saara degdeg haloo soo saarilay gantaalihii difaaca waa ka dhamaadeen maraakiibtii iyo saldhigyadii wax Mareykanka saatiisa haysta waxa la yaab la bark oo saaki alla yaab nin wariyaa wuxuu leeyahay wuxuu ka soo waramayaa Kiev caasimada Ukraine
wariyaha marka wuxuu leeyahay Ukraine jugtaa laga geliyo gantaalihii balastiga ee Ruushka ayaa saakay roobka looga dhigay gobollo kalena saasaa loo garaacay madaxweynahoodii yaa qaylinayo wuxuu leeyahay Maraykanku gantaalaha difaaca cirka ee patriotiga nala soo gaar waddamadii kale Yurub nala soo gaara Maraykanku kan marka wuxuu leeyahay war Maraykan asagiya wuxuu leeyahay tiisa haysataayo shirkadii patriotiga iga soo gaarsii ku ay adduunkaan oo dhan bujiti wuxuu noqday adduun dagaal u noqday ilaahayow khayr noo keen Soomaali haddaan nahay dee annagu haddee xaggee adduunka kaga jirnaa wax kasta adduunkaasaa Soomaaliya laga keenaa maxaa noo xal ah meel walba waa u jeedaan baabal mandab oo arkaysaan niman xuuta la yiraahdo dul degan oo shalay aan soo qaadanoo lahaa canshuuraan qaadaynaa iyo ma qaadi kartaan iyo jugtaa la isku hayaa Hormuz waa kaas adduunkii oo dhan jugtaasaa meel walba ka socota haddee maxaa noo xal ah marka arrinkaasu marka waxa waaye ilaahu umuuraha sahal amarayna ilaahu xaalkan iyo dhibaatadan iyo mushkiladan ilaahay dadkeena ha ka wareejiyo soo ducaayeen soo qoro ducadiin insha Allah ilaahay dhibka naga saaro dhibaato lagu jira adduunka oo dhan wareersan haddaba markaan idinku tuso wargeyska la yiraahdo Asharqul Awsat wuxuu leeyahay Pentagonka waa wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka waxay siisay shirkadda la yiraahdo Lockheed Martin heshiiskii ugu weynaa taariikhda ee la soo saaro gantaalaha la yiraahdo patriotic la soo saaro ayaa la siiyay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa gelinkii dambe shalay oo Arbaco ahayd ciidamada Maraykanku waxay u saxiixeen shirkadda la yiraahdo Lockheed Martin heshiis gaaraya qiimihiisa 58.62 bilyan oo dollar kaasoo ay ku soo saarayso sawaariikhda patriotic ee difaaca hawada 58 bilyan ayaa loo saxiixay shirkadda soo saaraysa gantaalaha ورنجا سو غارسيه ليهين عيدن كيو مركب يو وح ماشان كل جوكتا سال اسكو عيال واي قوكا سورا كاسا كا غود بينا وحيابان لا ياب كلا ساكي سو بخايا مركب محاكمه شلي اما حلي waxaan sheegnay Masar dekedeeda mid kamida maraakiib Mareykan in lagu weeraro ilaa hadda waa la isku haystaa diyaaradaha meesha weeraray cidda iska laay Iran ma sheeganin awlaadeeda ma sheeganin yaa weeraray Mediterranean-ka Israa'iil inta ka saaran waxa kaliya ee weerari kara oo wax ku dhufan kara awlaad Iran ah waxa leeyahay waxa u dhow Hezbollahna waxba ma ridin haye xagee marka daroon isku ka yimid shaki badana marka hareynaya sheekadan waxa leeyahay wali baashanu meel mafulay maraakiibtan Masar meesha joogtay waxa looga shakisan yahay Israa'iil looga shakisan sheekooyinkaas marka way isku qasan yihiin ilaa hadda Iran ma sheeganin awlaadeedina ma sheeganin maqlaysa marka sheekadaas iyaduna wararkaas ka soo kordhay dhanka kale warka ugu dambeeya barnaamijkeena saaka waxaan ku soo qaadanaynaa nimanka Israa'iiliyiinta cabsiyaaba nafta ka qaadaysa ayagoo awal baqayay ayaa haddana waxa aayatullaahi argoosigiisaba mixnad ku noqday hurdo la'aan u galiyay nimanka waxa la kordhiyay ilaalada mas'uul kasta oo ugu sareeya Israa'iil istaxadarka ilaalada iyo waxa dhan iyo maxaa dhacay Iran way cunaysaa way si dadka ugu sareeya madaxda Israa'iil ay cunaysaa waa diyaarsatay qorshiye ay ku khaarijin lahayd oo ay kaga takhalusi lahayd marka hal la ilaaliyo madaxdii wasiiradii hal la ilaaliyo ninkii ugu weynaa hal la ilaaliyo kan hal la ilaaliyo ka socod marka wareer iyo walaahood iyo cabsi ilaahay xaqiisa uga timida marka ku habsataa leenima saasay u jaraynayaan Israa'iil Iran aanu soo socotay haddaba markaan idin tuso wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay waxa hadda muuqanaya
in markaa aargoosigii Iiraan wadadiisii inay furantay oo markaa uu soo socdo. haddaba waxay filaysaa Israa'iil in la sameeyo dilal Iiraan ay dili doonto madax ka tirsan Israa'iiliyiinta. waxaa la adkeeyay amniga iyo ilaalada shakhsiyaadka muhiimka ah oo markaa xukuumadda iyo ku jira. waxaa sidoo kale la sheegay in lagu qabanayo shir kastoo muhiima meel sir ah oo markaa cidina aanay ogaan karin. marka nimankii marka mushkiladaasa ilaahay qoorta u galiyay iyo cabsidaas. marka xaalka wararkaas ayaa ugu waaweynaa ilaa hadda wixii soo kordhay. waa arki doonaa kollay wixii akhbaarada kale ee soo dhaca waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadayda soo socda. inta aan mar kale kulmayno haddaad nagu cusub tahay ha iloobin subscribe inaad ku dhufato YouTube-ka. sidoo kale haddaad nagala socoto Facebook-gana follow garay si aad mar walba u hesho barnaamijyadeena muhiimka ah. inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.